وشلقو هرتيو ويدي قاسيادة هيبة دليل شاي الجماعة سولي هدا سولي سولي هدا سولي الأبو هورقم يا ما ولا قاعدي اليدي تراويش لقو هرتيو ويدي قاسيادة هيبة دليل شاي الجماعة سولي هدا سولي سولي هدا سولي الأبو هورقم يا ما ولا قاعدي اليدي تراويش لقو هرتيو ويدي قاسيادة هيبة دليل شاي الجماعة سولي هدا سولي سولي هدا سولي الأبو هورقم يا ما ولا قاعدي اليدي تراويش لقو هرتيو ويدي قاسيادة هيبة دليل شاي الجماعة سولي هدا سولي waxaan marka hore hambalyeynaya xulka gobolka Sool oo maanta run ahaantii soo bandhigay ciyaar aad iyo aad u qiimo badan oo ka muuqdo anshax fara badan iyo akhlaaq iyo edab runtii aad baan idigu hambalyeynaya haddii aynu maanta barbar galnayna waa badis in yar la hay soo dhanina haniyad jabin insha Allah ciyaaraha dambe guul baan idin rajaynayaa waxaan idin sheegayaa laba kelmadood malaha dee suurkaad igu aragteen sportsman baa laftigaygu ahay kubadda cagta iyo basketkaba labadaba waan ciyaaraa asxaabtayda kale xagga sportskana uga xoogaa kaga yar wanaagsan baan u malaynayaa mas'uuliyiinta kale marka laba talaan idin siinaya aan maantana siiyay xulka gobolka Xaysimo oo nuqada ku lahayn magaalada Hargeysa labada talo waxa weeye waa discipline and teamwork waa anshaxa iyo wada shaqaynta teamwork waa isku xidhnaasho labada teamka laga helaa waxa boqolkiiba 90 ay u dhowdahay inuu guusha hanto insha Allah kuwii labada laga helaan ayaan idin rajaynayaa inaad noqotaan guul baan idin rajaynayaa ka mas'uuliyiin ah waanu idin garab taaganahay waanu idin taageeraynaa maanta oo dhan garoonka waanu joognaa aad baan idin taageeraynay inaad naarkiiseen mooyaan marka waanu idin taageeraynaa magaaladiinina waa timaadeen ay soo dhanina meel fog baa ka timaadeen magaaladiinii baa timaadeen soo dhawaada kooxda Sool maanta waxaad dhigteen ciyaar aad iyo aad u qiimo badan oo taariikhi ah waxaan odhan karaa ciyaarihii dhacay labadii cisho ka horeeyay iyo maanta marka la isku geeyo waxaan odhan karaa ciyaartii ugu adkayd ugu quruxda badnayd ugu la yaabka badnayd ciyaarta maanta idinka iyo Gabil idin dhex martay bay ahayd taasina waxay muujinaysay in laba tiim oo adag ay maanta ciyaarta isku haleeleen laakiin waa taladii ay disiyeen ambassadorku ina teamwork iyo discipline labada arrimood idinka helo haddii teamwork inuu fiicnaado absolutely arkiinu noo fiicnaanaya inta badan waliba in la talooyinka way la siisiyaa way qurux badan tahay dhexdiinu maanta inaad wax badan ka soo bedeshaan bay u baahan tahay dhexdu inay xoog iyo xoog wax looga soo bedelo ayay u baahnayd haafkiina hore iyo horta difaaciinu aad iyo aad buu fiicnaa waliba ninka bilada dahabka la qaaday maanta ee ugu hadal haynta badnaa ee social media iyo meel walba laga hadalhayay gool hayihiin buu ahaa kaliya ciyaaruhu ma aha in la ciyaarayo oo wada gobol ciyaarayaan ninkii goolwadihiini waxa lagu tilmaamay inuu noqon karo goolwadihii qaranka muhiimadeedu sharafteedu waa idinkana waxaanu doonaynaa inaad noqotaan muwaadiniin isjecel oo reehbal lahayn kala duwan runtii galabta waxaad muujiseen ciyaar wanaagsan waxaan idin rajaynayaa insha Allah inaad kulamada dambana badin doontaan anoo maayarkii magaalada Laascaanooda waxaan halka ka balan qaadayaa ciyaarta dambe haddaad gudubtaan in $1,000 aan bixin doono haddii la idmo
waxaan kaloo si gaara ugu hambalyeynayaa goolhayaha gobolka sool master yuusuf yacquub oo runtii muxuu ahaa galabta arkaysteen wacdar uu muujiyey dad badan baa kolley warar badan isla dhex mareegayay markaa waxaan leeyahay kooxaha ka soo qayb galay tartanka somaliland iyana isku mashquulin ee kooxow dee qof walba gobol baad ka socotay gobolkaagii iyo ciddaad soo xulatay ciyaartooygaad soo xulatay waxaan ku leenahay aamin waxaynu si gaara u xusnay goolhayaha gobolka sool yuusuf anu waxaan ballan qaadayaa ciyaar walba xulka gobolka sool uu ciyaaro uu goolhayuhu goolkiisa ilaaliyo inaan bixin doono lacag $200 kulley ciyaaruhu haddii la ciyaaro ciidun baa ka soo baxda ciidun baa la hadal hayaa waxaa farxad iyo guul ah galabta ciyaartii dhacday barbaraad keenteen laakiin guusha labaad aad sidataan waxa weeye yuusuf yacquub oo caawa social media oo dhan haysta hadallo badan baa halkan laga soo jeediyey ambasadorka laba kelmadood ayuu nagula dardaarmay oo ah akhlaaq wanaag iyo isku xidh maanta ciyaartaydii waan aragnay isku xidh kama muuqan laakiin insha allah ciyaar dambe waan isku xidhi doonaa dhalinyarada macallimiinta ayaana wixii khaladaad ee dhacay saxaya haddii aan la idmo ta akhlaaqdana garoonka maanta laga arkiyey oo halkaadh oo baxay ma jirin hadduusan midbixin galabtana waxaad muujisay ciyaar wanaag laakiin waxaa idiin dhiman oo keliya idinkoo dee inta idinka dhimanay dhaliishiina waad garanaysaan macallimiin fiicanna waad haysataan runtii waxaan rajaynayaa ciyaarta soo socota inaad sixi doontaan waxaana rajaynayaa inaad badin doontaan koobka sanadka waxaa le bari waxaynu geynaynaa bari insha allahu tacaala waxaynu ugu ducaynaynaa gobolka xaysimo oo ah xaruntii daraawiishta somaliland koobka sanadka halkaas tegi doonaa insha allah idinkana waxaan idin rajaynayaa guul iyo lambarada ku xiga insha allah inaad soo egsataan cabdicasiis oo ah ninka hadiyaddan ugu talagalay goolhayaha iyo isuduwuhu fadlan halkan soo istaaga oo hal la guddoonsiiyo hadiyaddii baa loo dhiibayaa waa kan ninka social media haysta waa ninka caan ku dhalaya aad iyo aad mahadsan yahay